Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa aabbihii cilmiga bulshada ee noolaa qarnigii 14aad, magaciisuna ahaa Ibn Khalduun, iyo waxyaabihii uu ka dhahay siyaasadda, taariikhda, dhaqaalaha iyo dowladnimada. Magaciisa wuxuu ahaa Abu Zayd Cabdiraxmaan ibn Muxamed ibn Khalduun al-Hadrami. wuxuu 27kii May 1332 ku dhashay magaalada Tunis ee waddanka Tunuusiya. wuxuu ahaa caalim weyn oo ku xeel dheer xagga siyaasadda, dhaqaalaha, taariikhda, dhismaha iyo burburka dowladnimada, arrimaha bulshada iyo horumarinta. intaas dhanna wuxuu ku soo bandhigay kitaabkiisa weyn ee Muqaddimatul Ibn Khalduun ama hordhaca kitaabka Ibn Khalduun. isagoo tilmaamaya fadliga aqoonta taariikhda, wuxuu yidhi: cilmiga taariikhdu waa cilmi muhiim ah, faa'iido badan, sharaf leh, maxaa yeelay wuxuuna tusayaa xaalka ummadihii tegay iyo dabeecadahoodii, nebiyadii calayhimussalaam iyo siiradoodii, boqorradii iyo dowladahoodii iyo siyaasaddoodii, si wax loogu qaato xagga adduun iyo xagga aakhiro. Ibn Khalduun buuggiisa Muqaddimatul Ibn Khalduun wuxuu qoray 1377 miilaadiga, waxaana ka faa'iidaystay aqoon-yahano badan oo noolaa qarnigii 17aad. waxaana ka mid ahaa dadyowgii ka faa'iidaystay taariikhyahanadii dowladdii Cusmaaniyiinta oo aragtidiisii u adeegsan jireen inay ku taxliiliyaan koritaanka iyo dib u dhaca boqortooyadii Cusmaaniyiinta, halka aqoon-yahanadii reer Yurub ee noolaa qarnigii 19aad ay qireen ahmiyadda uu leeyahay buugga Muqaddimah ee Ibn Khalduun. sidoo kalena ay u tixgelin jireen inuu Ibn Khalduun ka mid ahaa aqoon-yahanadii ugu waaweynaa ee qarniyadii dhexe noolaa. Ibn Khalduun buuggiisa Al-Muqaddimah wuxuu shaaca kaga qaaday cilmi cusub oo ah cilmiga bulshada. wuxuu kaga hadlay arrimaha diinta, siyaasadda, dhaqaalaha, ciidanka iyo dhaqamada kala duwan ee bulshadu ay leedahay. taariikhyahanada casrigan aynu joogno waxay buugga Ibn Khalduun ee Al-Muqaddimah ku tilmaameen inuu yahay buugga ugu weyn ee cilmiga bulshada iyo taariikhda ka hadla ee ebed la qoray. ugu dambayntii, Abu Zayd Cabdiraxmaan ibn Muxamed ibn Khalduun ama aabbihii cilmiga bulshada wuxuu geeriyooday 17kii Maarso 1406, asagoo da'diisa ay tahay 73 sano jir. ayuu ku geeriyooday magaalada Qaahira ee waddanka Masar. fikradihiisii iyo buuggiisa Muqaddimatul Ibn Khalduun waxay noqdeen dhaxal ay aqoon-yahano badan isticmaalaan ilaa iyo casrigan aynu joogno. daawade muuqaalkan haddaad ka heshay laag saar, sabskraibna ha ka ilaabin. wassalaamu calaykum.